kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janaalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada war degdeg ah oo hadda ina soo gaaray ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa goordhow shaaca ka qaaday inuu ku dhacay cudurka coronavirus ee sida xoogan ugu faafaya dalkaas iyo guud ahaan caalamka. Boris Johnson ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri 24 saac ee ugu dambeeyay waxaan isku arkay astaamaha coronavirus kadib baaritaan la igu sameeyay waxa la iga helay cudurkan. Johnson ayaa noqonaya mas'uulkii ugu sareeyay ee caalamka ee cudurkan laga helo waxaana la sheegay in xaaladiisa ay tahay mid aan darnayn. Ra'iisul wasaare Boris Johnson oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri hadda waxaan bilaabay inaan si iskay ah isku go'doomiyo balse waxaan sii wadi doonaa jawaabta dawladda UK ay ka bixinayso cudurkan aniga oo adeegsanaya shirarka lagu qabto fiidiyowga si aan ula dagaalamo viruskan. afhayeen u hadlay xafiiska UK looga arrimiyo ee Downing Street ayaa sheegay in Johnson oo 50 jir ah uu astaamo fudud isku arkay Khamiistii kadib markii uu ka soo jawaabay su'aalaha toddobaadlaha ah ee ra'iisul wasaaraha lagu weydiiyo baarlamaanka. ilaa iyo hadda ma cadda tirada shaqaalaha xafiiska Downing Street iyo wasiirada sare ee iskarantiili doona maadaama qaar badan oo ka mid ah ay xiriir la sameeyeen Johnson maalmihii amba toddobaadihii dhawaa ee la soo dhaafay. waad ku maasantahay daawashada aad daawata muuqaalkan daawade haddii ay tahay booqashadaadii koowaad fadlan janaalka subscribe saaro furana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.